بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا عليه الصوماليات ميلو البقوة تفاعل كجوبتان سنة كدب الحمد لله الله ما هذولني أسولاتي أنت كدب إن شاء الله وحربا ما أنت إن أن كهذلو موضوع مالك دواد أن كهذلني قيب كميدا مالك دواد حنكسو هذلني guur muxuu yahay iyo mas-uuliyad maxay tahay maantana insha Allah waxaan rabaa sidii maalinkii muxaadarada laba qaybood aan uga dhigay inaan maantana insha Allah laba qaybood uga dhigo qaybna aan wiilasha kula hadlo qaybna aan gabdhaha kula hadlo insha Allah maanta marka qaybtan aan soo hormarinayo waxaan rabaa inaan kula hadlo wiilasha maadaama iyaga mas-uuliyad ay saaran tahay mawduuca marka maanta aan ka hadlana wuxuu yahay sidee u dooran kartaa lamaanahaaga mustaqbalka ku anfacaya oo aad doonayso su-aashaas nebiga sala allahu calayhi wasalam baa inooga jawaabay nebiguna sala alla alay slam wuxuu yidhi tunkaxu limra'atu arbaca gabadha waxaa loo guursadaa afar shay saddex shay oo ka mida nebigu sala allahu alay wasalam ma faahfaahin ee wuu sheegay keliya laakiin xabadkii ugu dambeysay uu si fiican u faahfaahiyey axaadiid kalena lagu faahfaahiyey number one waxaa ah lijamaaliha gabadha quruxdeeda baa lagu guursadaa quruxdeeda unbaa la yidhi laakiin lama faahfaahinin waayo waxaa laogyahay qurux inay tahay wax dhammaanaya ama kaa tegayna waxaan ka wadaa gabar walba qurux badan markaad guursato waxay iska dhaadhicinaysaa ama qalbiyan dareemaysaa haddaad kan ka tagto nin kaloo ku guursado waayi maysid marka qurux waa tii ama kaa tagta ama kaa dhammaata number two waxay tahay qodobka labaad oo gabadha lagu guursanayo waa limaaliha gabadha maal kale maalna waxaa la ogyahay oo aan isana loo sii faahfaahin inuu yahay wax dhammaan kara ama adiga dhib kugu keeni kara midda saddexaad waxay tahay walixasabiha inay gabadhu ka soo jeedo faamil dadka dhexdiisa sharaf ku leh sida abwaaniin oo kale geesiyaal oo kale dad noocaas oo kale inay gabadhu ka soo jeedo haddii ay gabadha nooca ka soo jeedana waxaa la ogaanayaa dadkaas inay ama dhimanayaan ama laga yaaba inay adiga geeridaada sabab u noqdaanba marka wax yar adiga gabadha isfahmi weydaan laakiin qodobka ugu dambeeya wuxuu yahay oo nebigu sal ly slam uu ku dhigay lidiiniha gabadha diinta leh nebigu sal slam wuxuu yidhi fadfar bidaati diin ku dheg ooyay kaa baxsanin midda diinta leh taribat yadaaka gacmahaagu ha booroobaan haddii aad sii dayso yacni waa hadal carabta iska oran jirtay marka walaal haddaad doonayso gabar lamaane qurux badan lamaane sharaf badan lamaane kaa dambeeya xaqaaga ilaahay uga cabsada aan ku dulmin adiga aan wax dhiba kuu geysanin khilaafka idiin yimaado mar walba jecel inay saxdo waa inuu noqdo lamaanahaasi gabar ilaahay rabbi subxaana wa tacaala ku xiran diinta ilaahay rabbi subxaana wa tacaalana taqaana diintana ku sifaysan diintana ku tilmaaman waa inay tahay nebigu sal alay wasalam wuxuu kaloo xadiid kale ku yiri wuxuu tilmaamayaa marka gabadha wanaagsan oo diinta leh oo akhlaaqda leh buu tilmaamayaa nebigu sal slam wuxuu yidhi waa gabadha idaa nadarta ilayha markaad fiiriso gabadha saraadha ku farax gelinaysa dhaqankeeda akhlaaqdeeda sharafkeeda qiimaheeda gacan furnaanteeda hadal wanaageeda baa ku farax gelinayaa muusoodkeeda ama ismaayilkeeda ama qosolkeeda yarka markay kusoo qaabilayso baa ku farax gelinaya nebigu sii waday wuxuu kaloo yidhi idaa amartahaa waa gabadha markaad wax amarto oo tiraahdo waxaan waan samaynana oo wanaaga atactahaa ku adeecda oo aan hadalka keenin qodobka kale wuxuu yahay nebigu sal slam xadiidka ku tilmaamay wa in aqsama calayha waa gabadha haddaad u dhaarato oo wax wanaagsan waxaasaan samaynana aada ugu dhaarato abarathu baari u noqonaysaa waa gabadha markaad wax wanaagsan ugu dhaarato oo tira waxaasaan samaynana insha Allah kugu adeecaysa oo aan kugu khilaafaynin waa gabadha sidoo kale
in qaaba canha zawjaha ninkeedu markuu maqan yahay waa gabadha xifdinaysa nafteeda iyo maalkooda iyo awlaadooda iyo gurigooda xifdinaysa. gabadha wanaagsan lamaanaha quruxda badan leh, lamaanaha qof walba ku fakerayo inuu helo, lamaanaha aad rabto inay kaa dambayso, aad rabto inay ku ixtiraamto, aad rabto inay ku qurxiso, aad rabto inay mar walba qalbigaaga ka fikirto, qalbigaaga iyo maskaxdaada ay ka fikirto say u kasban lahayd, waa gabadha diinta leh. qof walbowna ku dadaal gabadha diinta leh. waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiiso tiraahdo sidee ku garan karaa gabadha diinta leh? waxaad ku garan kartaa allah rabbi subxaana wa tacaala ka bari oo waxaad tidhaahdaa allahuma innii astakhiruka bicilmika wa astaqdiruka biqudratik, yacni ducaa istikhaara akhri. ilaahayow ii fududa gabadhaas hadday gabadhaan doonaya ay tahay gabadha yacni qalbigayga kasbanaysa, sharafkayga iyo qiimahayga kasbanaysa hadday tahay ilaahu ii fududeynay. ilaahay rabbi subxaana wa tacaala wuu kuu fududaynaya, wuuna kula garab gelayaa. ilaahayna muxuu yidhi ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin. ilaahay qofka wanaagsan oo muxsinka ajrigiisa iyo ballanqaadkiisa iyo wanaagiisa ma dayacayo. ilaahay isaga arrintaa ballan qaaday. marka qof walba oo caazib ah ama single ah ama iskaabulo ah ama doob ah oo wiil walba ah waxaan leeyahay walaal doono gabar diin leh. ilaahay rabbi subxaana wa tacaala ka bari inuu ilaahay midda diintana kugu toosiyo insha allah. intaas baan rabaa insha allah inaan maanta hadalkayga kusoo gabagabeeyo. wixii aan khalday naftayda iyo shaydaan bay ka ahaadeen, wixii aan saxayna alxamdulilah allihii waafajiya baa mahad iska leh. wasubxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka ismuka watacaala jadduka walaa ilaha kayruka. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.